bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo warida dhaqaalaha kobcee kaalin qaadayo kobka horumarkuu kor u qaadayo kulmiyeynune kor u qaadayo kulmiyeynune kulmiyo bulshada isku keenayo maanta farxadda iyo jaaliska ma helnay inaan roogga casqa laabsanno maadaama aynu ka soo qayb gallay furitaanka diyaaradaha adiga arkaya quruxda calanka diyaaraddu ku sawirantay airportkeena taagan oon jiri jirin markaad maantoo kale aragto maxaad odhanaysaa somalilan socotay mana soo noqonayso aad baan idin salaamayaa shaqale aad buu mahadsan yahay maanta iyo xigaan international airport hargeysa madaxweynuhu kiciye uu soo fadhiisiyey dadkoo dhanna ay ku faraxsaneen inay daawanayeen maasha allah baan leenahay horumarka waddanka aynu doonayno in laynagu soo kordhiyo ayay ka mid tahay diyaaradahan way yaryar yihiin laakiin beritoole waxaa imanaya kuwii waaweynaa waa saynkii diyaaradaha saaka farxad badan baa ka muuqatay shacabka reer somalilan iyo inta arki doonta hadhow toole barnaamijkan oo diyaaradahan amba hawshan ay dowladdu inoo qabatay marka waxaan jecelnahay inay ku hambaliyeeyaan qof kastoo reer somalilan wixii inoo soo kordha ilaahay ha ka dhigo kaariyoono yarne inay ku hambaliyeeyaan inaan iska hor nimaadna ma qurux badna inaynu wixii aan waxaan jirin ku sheegnaa ma wanaagsana qaarba maalmahanba soo sawirayna waxaan waa sawir iyo photoshop ma photoshop way naga arkaynaa inaga ag taagan wax photoshop la yidhaahdaa ma jiro ya quruxda kaaga sii dara siduu magacu ugu qoran yahay somalilan aragtaa eeg calanka quruxdiisa shaqalo munaasabad aad u ballaaran oo ka dhacday garoonka diyaaradaha soo caga dhigtaan ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa maanta lagu jaabinayay 4 diyaaradood oo ay leedahay Somaliland mid ka mid ah waxa kaxeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waana diyaaradda ka dambaysa xariiqna ka dambaysa 4 diyaaradood waxa lagu talagalay in madaxdu ugu kala dhoofaan gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ay ka kooban tahay jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan shaqalo ka waran maanta farxadda farxad aad iyo aad u qiimo badan baa ka dhacday waa markii ugu horeysay dawladda Soomaaliya yeelato diyaarado ay madaxdu ku dhoofto oo ay kaga dhoofto gobolada iyo degmooyinka ay ugu kala dhoofaan haddaba halkan waxaa ka dhacday munaasabad aad u ballaaran oo lagu furayay diyaaradaha cusub ee Somaliland ku soo kordhay waxaana goobta jooga oo hadda ku jira hoolka VIP-da madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo halkaas shir kula leh qaybo ka mid ah shaqaalaha madaarka marka farxad gaar ah ayay noo tahay inaynu maanta yeelano diyaarado soo taabanayno calanka Somaliland oo kaas ah oo aad arkaysaan farxad iyo guul ayay noo tahay waanad mahadsantihiin ودي كاركيا مانتا يدي أرديه إيربوس كعسبوية لديسي دون إن شاء الله مستقبلك ودي كاركيا حفلتي حاجة اللي قبتي دي أرديه وقوع عصباه